garsooraha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa sheegay in agaasimaha laanta bangiga dhexe ee dekedda magaalada Muqdisho uu xaday lacag dhan 240,000 oo dollar isla markaana maxkamaddu ay martay in cadaaladda la hor keeno si wax looga weydiiyo arrintaasi waxaana garsooruhu sheegay in xeelaliyaha arrintaasi wax ka og yahay maanta waxa isugu nimid inaan ka hadalno arrintan dhacdada yaab kale arrintan dhacdada yaab kale bishii 9keedii 6 Juun 2015 ayaa waxaa lacag laga qaatay bangiga dhexe ee khasnadda dekedda ee Soomaaliya khasnaddii oo halawday ayaa wuxuu ku wareejiyay Amiin Cabduqaadir Amiin lacag gaarayso 204,000 oo dollar ee tahay lacagtii hantidii qaran maadaama khasnaddii halawday ninka agaasimaha laanta dekedda oo lagu magacaabo Cabdi Maxamed Abuukar Dhiilay warqad uu ka saxiixday lacagtii ku wareejiyay wuxuu raadiyay farsamo yaqaan hagaajiyo khasnaddii intuusan wareejin ayuu wuxuu la hadlay gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Mari Macalin ee qaraabo hoose yihiin Cabdi Maxamed Abuukar Dhiilay iyadana meesha geysay waxay ku tiri lacagta u dhiib ninkaas ninka lacagta markii uu dhiibay 240,000 guriga ku gatay lacagta keen markii la yiri guri baan ku gatay lacagta raata iska soo celinaya Mariin buu wacay wariya amarkiisa qaaday dhacday lacag tartiib ah loo bixinay aamus ninkii warqadii oo ka saxiixday ninkii agaasimihii laanta dekedda lacagtii khasnadda marba wax buu ku shubaa waxaa yimid hanti dhowrkii guud ee qaranka baaris uu galay lacag waxaa meesha ka maqnaatay 48,000 oo dollar 48,000 xagee aad ayaa la yiri khasnajiga warqadii cadeymiyay la soo baxay uu leeyahay lacagtii waa tanaa warqadda ninkaas lacagtii iga qaatay Marin Macalin ayaa gudoomiye ku-xigeenka bangiga Mari Macalin dhahday si waa tan ninkii la soo xiray Amiin Cabduqaadir Amiin oo ah khasnajigii dekedda ee bangiga dhexe CID markii la geeyay baaris la galay baaristii waxay cadaatay in la soo qabto Cabdi Maxamed Abuukar Dhiilay oo agaasimihii laanta dekedda lacagta loo dhiibay maalmihii ugu dambeeyay waxaa hareeyay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan waqtigeeda uu dhamaaday fadeexooyin la xiriira lunsasho lacagta dawladda taasi oo lagu eedeynayo inay xadeen shakhsiyaad mas'uuliyiin ah ilaa haddana ma jirto cid arrintaasi loo soo xiray Maxamed Bilageel telefishinka Somali News magaalada Muqdisho.